والله ما عندي إن شاء الله حرجيني إنه عجبي دونه. السلام عليكم سو dhawaada dhamaantiin ku soo dhawaada suuqhaye maanta waxaan idin soo bandhigay hadii alla ka dhigo iskuul ku yaala magaalada Hargeysa iskuul ah barashada yaani xirfadaha kala duwan iskuulkan waa la iibinayaa marka waad ka faa'iideysan doontaan muuqaalkan hadii alla ka dhigo halkan aynu joogno ayuu iskuul ku yaala iskuulkan waa kan weeyaan marka gudaha aynu galeynaa marka soo dhawaada iskuulkan waxaad kala xiriiri kartaa lambarka shaashada ku yaala iskuulkani waxa uu ku yaala bartamaha suuqa Hargeysa waxaanu ka soo horjeedaa hoteelka caanka ah ee loo yaqaano Oriental Hotel halkani waxa weeyaan klaaskii xinaha lagu baranayay isla markaana ardaydu way fadhiyaan sidaad arkaysaan sidoo kale halkan imika aynu joogno waa klaaskii makeup-ka lagu baranayay hablo badan ayaa halkan wax ku baranaya sidoo kalena halkan makeup-kii ayaa la barayaa hablaha kalena makeup-ka ayay baranayaan waxyaabaha kale ee iskuulkan lagu barto waxaa ka mid ah macmacaanka iyo cuntooyinka adiga walaal soo diyaari soo ma soo diyaariye bismillaah wax magacaygu waa Nakrume Ibraahim waxaan ardayda imka ka qalin jabisay kaaga وانا سو دياري كاغن حرجينا mid kan kasi qurux badan ina soo diyaariyo insha Allah kaaga goorma bilowday adiga saakan sameeyay wixii hore gelinkii dambana kalimkan mariyay waa diyaar marka maalintii saxabad diyaari karaysa maalintii dhowr xabboon diyaarin karaya ka waran kaaga marka la cuno si dadku noqdaan maxay dareemaan wallahi ma caadi insha Allah xarjinayna inuu cajibi doono dadweynuhu marka la soo dhawaada ku soo dhawaada suuqhaye iskuulkani waxa uu ku yaala bartamaha suuqa Hargeysa gaar ahaan qaybtiisa farsamada gacanta waxay ka dambaysaa saldhiga dhexe ee magaalada Hargeysa hadaba iskuulkan hadii aad iibsato wuxuu baa kala wareegaya maamulka oo furayaasha ayaad la wareegaysaa marka waxaan ku leeyahay jaaniskan ka faa'iideyso halkan waxa weeyaan waa qolkii xafiiska weeyaan isla markaana lagu diiwaan gelinayo ardayda sidaad arkaysaan baa imika qof ayaa la diiwaan gelinayaa sidoo kalena waxaa jira xafiiska guud oo u dhow sidaan hore soo sheegnay Hotel Oriental ee bartamaha magaalada Hargeysa xafiiskuna waa kan aad arkaysaan marka iskuulkan waxa la yiraahdaa Ahlam Skills hoyga barashada xirfadaha qurxinta marka imikana xaga sare intagina hadii alla ka dhigo ardaydan ayaan soo dhaafeynaa waa mid kamid ah ardayda ugu wanaagsan ee iskuulka dhigata weeyaan marka meel walba waa lagu soo dhaweynayaa waxyaabaha iskuulka lagu barto waxa kamid ah masaajka waxa kamid ah xinaha qurxinta wajiga nafaqeynta timaha saameynta yaani saameynta keegyada aroosyada iyo waliba dhalashada iyo xafladaha iyo intaba saameynta decoration-ka iyo barashada xinaha marka waynu sii soconaynaa hadii alla ka dhigo halkan waa qolkii decoration-ka halkan waa qol kale halkan waxa weeyaan waa xafiiska weeyaan marka xafiiska laftiisana waynu galeynaa halkan baad fadhiisanaysaa sidoo kalena maartay ardaydaada halkan bay imanayaan marka ma sha Allah marka hadii alla ka dhigo waxaad kala xiriireysaan Ahlam Skills lambarada shaashada ku yaala waa qofkii meesha iska lahaa weeyaan qofkaas ayaad si toos ah uga xiriiri doontaan imika waxaynu joognaa galaaskii decoration-ka lagu baranayay sida arkaysaan decoration-ka ayaa imika ardaydu ay baranayaan isla markaana waxa weeye waa class arday qurux badan ay dhex fadhido sidoo kale classkana waa qurux badan yahay ma sha Allah xirfadda la baranayana aad bay qurux badan tahay marka waxa weeyaan wax waliba waa okay qaybtan oo ugu dambaysa maadaama dabaqa sare iskuulka soo fuulnay qaybtan oo ugu dambaysa waxa weeyaan waa kitchadi weeyaan kitchadana waa arkaysaan waa kitchada waxaad ku diyaarsanaysaa wax kasta oo u baahan tahay oo maartay naftana qaboojinaya yaani wax kasta la cuni karayo wax kasta la cabi kara intaba
haddaba walaalayaal ugu dambeyntii waxaad kala xiriiri doontaan iskuulkan lambarka shaashada ku yaala waa qofkii mas'uulka ka ahaa iskuulka isla markaana si toos ah ula xiriirisay